taariikhdu markay ku beegneed 14 bishii August ee sanadkii 2018 ninkan oo lagu magacaabay Cabdiljaliil Az-Zayaadi oo ahaa nin imaam masaajidada kana soo jeeday dalka Yemen ayaa wuxuu ka soo baxay gurigiisii uu deganaa ku yaalay magaalada Al-Mahraq ee ku taala dalka Bahrain wuxuuna aaday masaajidkii uu imaamka ka ahaa si uu salaad u soo tujiyo masaajidkaasna wuxuu imaamka ahaa uu ka shaqeynayay muddo 10 sanadood Cabdiljaliil halkaasii uu aaday subaxii oo wuxuu soo tujiyay salaadii subax dadkii muslimiinta ahaa markii salaadii laga baxay ee dadka ay wada tageenna Cabdiljaliil wuxuu ahaa mid aan ka kicin oo fadhiya mixraabkii masaajidka oo halkaas ku dikriyay Ilaahayna ku bariya sababtoo ah imaamkani wuxuu ahaa mid dabaqa sunnadii nabiga ee ahayd qofku inuu ku sii nagaado masaajidka marka salaada subax laga baxo ilaa inta cadceedu ay ka soo baxayso inta kadib marka cadceedu ay soo baxdana uu aado shaqooyinkiisa ama gurigiisa meesha uu aadayo صلى الفجر يوم السبت كالعادة الإمام وكعادته أنه يجلس إلى الشروق يجلس في المسجد إلى الشروق ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت أو إلى عمله سبحان الله تأخر في هذا اليوم ما رجع markii cadceedda ay soo baxday maalintaas oo dadka ay soo wada tooseen magaaladaas dhexdeedana Cabdiljaliil wuxuu ahaa midaan weli ku soo laaban gurigiisii sidii caadiisa ahayd markii hore arrinkaasina wuxuu ka dhigay qoyskiisii inay u warwaraan Cabdiljaliil meesha uu aaday oo uu sababteeda ugu soo laaban waayay guriga Sheekh Cabdiljaliil muu ahayn mid qabanaya wicitaanka moobilkiisa ama ka jawaabaya wicitaanada gurigiisina kuma soo laaban oo quraac muu soo doonan sidii caadada u ahayd waxraada uu leeyahay iyo meel uu tagayna cidima oga arrinkaasina wuxuu ka dhigay qoyskiisii inay u tagaan ciidankii oo ay gaadhsiiyaan arrinka waayitaanka sheekha dalka Bahrain waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dawladaha ugu badkeer dalalka Carabta iyo sidoo kale dadka degan inay aad u kooban yihiin sidaa darteed Bahrain dadka ku nool waa dad iswada yaqaan oo isku xidhan sababtaas awgeedna si degdeg ah uu ku faafay warka waayitaankii Sheekh Cabdiljaliil gaar ahaan warkaasi wuxuu aad u sii faafay markii la ogaaday in sheekhaas Yemeniga uu lahaa qoys iyo carruur aad u badan si kastaba ahaatee warkii markii uu faafay uu soo gaadhay ciidankii dalka Bahrain waxay bilaabeen inay dhaqaaqaan oo ay baadhitaan ku bilaabaan kiiskan iyagoo wajahaya cadaadis weyn oo uga imanaya dhanka shacabka oo ah inay raadiyaan oo ay meel ku sheegaan sheekhaas xalqadeena maantana waxaan ku dul socon doonaa talaabooyinka ay qaadeen ciidanku ee ay ku ogaadeen meesha uu aaday sheekhaasi ay ku xaliyeen kiiskan taasoo kusoo dhammaatay dhacdooyin waaliyo oo aan la filanayn oo ka dhacay buqcad daahira iyo beydkii Ilaahay ila socdaawada muuqaalka ilaa dhammaadka si aan isla ogaano qisadan oo dhammaystiran ciidankii waxay ahaayeen qaar bixinaya dadaalo aad u waaweyn si ay u helaan Sheekh Cabdiljaliil meesha uu aaday waxayna ka raadinayeen dhammaan waddanka gudihiisa isla markaasna waxay ahaayeen qaar la yeelanaya waraysiyo kala duwan dadkii u dhawaa imaamkaas si ay bal ogaadaan inuu jiray qof uu khilaaf kala dhexeeyay sheekha oo dhibaato u geysan kara waraysiyada laga qaaday dadkaas sheekha u dhawaana waxay soo celcelinayeen dadkaasi qof magicii qofkaasi aanu noqday qofka looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay waayitaanka sheekhan baadhitaanadii ciidanku ay sameynayeen waxay ku ogaadeen in sheekhaas Yemeniga inuu soo gaadhay dalkan Bahrain meelahaas ka hor 20 sannadood wuxuuna degay magaalada Mahraq ee ku taala dalkaas magaaladaasna si gaar ah ay u doortay sheekhani sababtaa waxa ku noolaa qaar ka mid ah dad ay qaraabo ahaayeen sheekha kuwaasoo caawiyay oo gacan qabtay waqtigii uu ku cusbaa waddanka waxayna ka caawiyeen inuu helo guri ku habboon iyo sidoo kale shaqo wanaagsan kadib 5 sannadood meelahaas markii uu joogay dalkaas Bahrain Sheekh Cabdiljaliil waxaa loo doortay inuu imaam ka noqdo masaajid halkaas ku yaala shaqadaasna waxa uu imaam u ahaa muddo 15 sannadood wuuna waday shaqadaas oo imaamka masaajidka ayuu ahaa ilaa maalintii la waayay muddadii uu ka shaqaynayay masaajidkaasna waxay uga markhaati kaceen dhammaan dadkii yaqaanay sheekhaas ee ku tukan jiray masaajidkaas inuu ahaa qof dhaqan wanaagsan oo sidoo kalena leh akhlaaq wanaagsan oo dadka kula dhaqma isagoo sidaas ahaa uu ku sifaysnaa akhlaaqdaas wanaagsan ee uu kaga dayanayay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam haddana dhammaan dadku may wada jeclayn Sheekh Cabdiljaliil sababtoo dadkii yaqaanay oo dhan ee ku tukan jiray masaajidku waxay sheegeen in sheekhaas uu khilaaf kala dhexeeyay ninka mu'adinka ka ahaa masaajidkaas oo ahaa wiil dhalinyaro oo ka soo jeeday asal ahaan dalka Mongolia kaasoo lagu magacaabayay Kamaaluddin ma ahayn mu'adinka masaajidkaas oo kaliya laakiin sidoo kale wuxuu ahaa ilaaliyaha masaajidkaas ee ka mas'uulka ilaalintiisa shaqooyinka uu ka qaban jiray masaajidkaasna waxaa ka mid ahaa inuu nadiifiyo iyo inuu ku nagaado masaajidkaas waqti dheer maadaama uu hawlo badan halkaas ka qaban jiray sidaa darteed waxaa la siiyey wiilkaas lagu magacaabayay Kamaaluddin oo la dejiyay qol raacsanaa masaajidkaas inuu halkaas dego u dhawaado masaajidkuna waxay ka caawinaysay inuu markaba soo gaadho waqtiga aadaanka imaamkii Cabdiljaliil wuxuu ka arkay Kamaaluddin inuu ugu yeedhayo qolkii uu deganaa ee laga siiyey masaajidkan dhalinyaro kala duwan oo badan
dhallinyaradaas oo asxaabtiisa ahayd. halkaasayna ku soo jeedi jireen habeenkii oo ay ku sheekaysan jireen. sidoo kale waxay halkaas ka wadeen qosol iyo kaftan joogta oo ninkaasi asxaabtiisu ay ku samayn jireen qolkaas dhexdiisa. sheekh cabdiljaliil wuxuu isku dayay maro badan inuu la hadlo wiilkaas mu'adinka oo uu ka reebo ficiladaas wanaagsanayna uu samaynayo. markastana kamaaludiin wuxuu ka odhan jiray sheekha waan joojinayaa ficiladaas, mar dambena ma soo laaban doonaan. laakiin muu ahayn mid ka istaagay waxaasuu waday. sheekh cabdiljaliilna mar walba wuxuu ahaa mid ay soo gaadhaan cabashooyinkaas oo uga imanaya dadka muslimiinta ee masaajidka ku tukada, kuwaasoo ka cabanayay codkan qaylada ee kasoo baxaya qolka masaajidka raacsan. intaa waxaa sii dheer sheekh cabdiljaliil wuxuu ogaaday in kamaaludiin uu ka ganacsado waxyaabo sharci darra oo wuxuu ka iibin jiray dadka ajaanibta aqoonsiya beena, weliba gaar ahaan wuxuu ka iibin jiray dadka kasoo jeeda waddankii uu kasoo jeeday asal ahaan ee sharciyaan haysan ee jooga dalkan Baxrayn. arrinkaasna run ahaantii wuxuu ahaa arrin uu adkaysan waayey sheekhu. wixii hore oo dhan waxaa laga yaabaa inuu iskaga dayn lahaa oo iskaga dulqaadan lahaa oo dhallinyarnimo ayaa ka keenaysay waxyaabahaas wiilkan, laakiin macquul ma ahayn inuu gacmaha ka laabto uu daawado isagoo og in mu'adinka masaajidku uu yahay qofkaas ka ganacsanaya howlaha sharci darrada oo weliba ku daba dhumanaya shaqadaas uu ka hayo masaajidka ee ah shaqadaas muqadaska ee ah u shaqaynta masaajidka. sababtaas darteedna cabdiljaliil wuxuu qoray qoraal iyo fariin wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dalka Baxrayn. fariintaas oo uu kaga cabanaya dhaqamada aan wanaagsanayn ee wiilkaasi uu leeyahay iyo weliba howlaha sharci darrada ee uu wada kamaaludiin. wuxuuna u sheegay sidoo kale marar badan inuu isku day inuu ka reebo arrimahaas, laakiin kamaaludiin wuu diiday ilaa inuu kusii dhiga adayga waxyaabahaas uu samaynayo mooyaane. fariintaas uu sheekhu la wadaagay wasaaradda diinta iyo awqaafta darteedna wasaaraddu way ka falcelisay cabashadii sheekha, waxayna qaadatay go'aan adag oo ah in kamaaludiin laga saaro shaqada oo laga eriyo shaqada uu masaajidka ka hayo. sidoo kalena waxaa amar lagu siiyey inuu ka guuro qolkii la siiyey ee masaajidka ku agyaalay, iyo sidoo kale inuu soo wareejiyo furayaasha masaajidka iyo maktabadda masaajidka raacsanba. kamaaludiin markii laga saaray shaqadii aaday u xanaaqay oo wuxuu ka xanaaqay sheekh cabdiljaliil, kaasoo uu arkay inuu isagu yahay ka sababta waa waxyaabahan dhacay oo dhan. laakiin iyadoo uu ninkaasi ka xanaaqay sheekha imaamka, haddana dhammaan dadkii yaqaanay muu jirin qof isirin ninkaasi dhibaato ayuu u geysanayaa sheekha. sababtoo si kasta uu xanaaqo waa nin mu'adin ahaa oo diinta kusoo dhex jiray, wax dhibaato inuu sheekha u geystana lagama filanayn. waqtigaa sheekh cabdiljaliil markii la waayey waxa lagu bilaabay arrinkii baadhitaankiina wuu socday. iyagoo baadhitaankii wadana waxaa soo gaadhay ciidankii wicitaan aad u muhiima, wicitaankaas oo soo afjari doona howlgalkii baadhitaan oo soo gabagabayn doona kiiskan. qofkaas oo ay ciidanka oo ahaa nin darawalka ahaa gawaadhida waaweyn ee xamuulka ayaa wuxuu sheegay ciidankii inuu ahaa mid gaadhigiisii ku wada meel cilla oo ahayd meel qashinka iyo gawaadhida xumaatay lagu soo daadiyo. isagoo halkaas socdana wuxuu arkay ninkaas darawalka 2 nin oo meesha ka samaynaya wax shaki leh, hareerahoodana eegay iyagoo naxsan. ninkaas darawalkaana wuu soo dhowaaday labadaas ninna uu ku arkay meeshaas, waxayna u ekaayeen nimankaasi inay isku dayaan inay ku tuuraan meeshan kiishash nooca qashinka lagu shubo ah, iyadoo aanay cidina arag oo aanay cidina ku baraarugin waxaanay wadaan. darawalkiina wuxuu weydiiyey labadii nin waxay meeshan ka wadaan ee ay ku tuurayaan waxa uu yahay, arrinkaas oo kasii cabsiiyey oo kasii warwariyey labadaas nin. nimanka halkaas uu ka arkay darawalkuna waxay haayeen qaar aan si fiican ugu hadli karin af carabiga. halkaasna wuxuu ka fahmay darawalkii inay kasoo jeedaan nimankani waddan ka mida waddamada Aasiya. mid ka mid a labadii ninna wuxuu ku jawaabay darawalkii inuu ka shaqeeyo masaajidkaasna ay kasoo xadeen isaga iyo saaxiibkii xadhka iyo waxyaabaha elektarooniga ku shaqeeya. laakiin marka ay soo xadeen alaabtii kadib ayaa waxay dareemeen dembiga inay sameeyeen khalad aad u weyn, isla markaasna waxay ka cabsadeen inay ogaadaan ciidanku arrinkooda hadday isku dayaan inay iibiyaan alaabtan ay soo xadeen. sidoo kalena kumay dhiiran inay u celiyaan alaabtan masaajidka ay ka soo xadeen, sababtoo ah haddii ay celiyaan waxaa la ogaanayaa inay yihiin tuugo. ninkii darawalka ahaa muu rumaysan hadalka ay u sheegeen labadaas nin, sababta uu rumaysan waayeyna may ahayn keliya in wejiyadooda ay ka muuqatay cabsi, laakiin sidoo kale kiishashka ay siteen ay ku tuurayeen meeshan waxaa kasoo baxaysay oo kasoo uraysay ur aad u qadhmuun. macquulna may ahayn in gudaha kiishashkan ay ku jiraan elektaroonig ama wax la mid ah. markii uu weydiiyey uu ku yidhi ninkii darawalka ahaa maxaa kusoo uraya kiishashkanna, way naxeen oo waxay isku dayeen inay beddelaan hadalka ay sheegeen markii hore, isagoo mid ka mid a labadii nin uu sheegay in kiishashkan waxa ku jira uu yahay ilmeer oo dhintay. ilmahaasanna waxa uu ku joogay dalka Baxrayn qaab sharci darra. markii uu dhintayna waxay go'aansadeen inay uga takhalusaan meydkiisa qaabkan, iyagoon gaadhsiin arrinkiisa dowladda oo aan loo qabsan sababta sharci darrada ay ugu hayeen ilmahan yar waddanka. laakiin sidoo kale ninkii darawalka ahaa ku muuqan in hadalkan dambe ay sheegeen raggani, wuxuuna isku dayay inuu raggan meeshan ku hayo inta ay ka imanayaan ciidanku
wuuna hayay labadii nin oo wuxuu la hadlay ciidankii wayna yimaadeen ciidankii goobtii. ciidankii waxay baadheen waxa ku jira gudaha kiishashkan ay raggani doonayeen inay ku tuuraan meeshan, halkaasna waxay ugu tegeen meyd bini'aadan oo la yaryareeyay oo halkaas ku jira. waqtigaasna maadaama la waday baadhitaankii sheekhi cabdiljaliil oo sidoo kalena kamaaludiin uu ahaa mu'adinkii ay wada shaqayn jireen oo weliba isaga marar badan lagu goday farta oo arrinkan looga shakisanaa, waxay isdhaheen waxa suurtagala in meydkan uu yahay meydka sheekhii la weysanaa ee cabdiljaliil. laakiin si loo xaqiijiyo arrinkaas waxaa laga rabay ciidanku inay qaadaan meydkan oo ay baadhaan DNA-giisa si loo ogaado cidda meydkan iskale qofka uu yahay. sababtoo ah haddii wejiga meydkan laga ogaan lahaa si xun ayaa loo galay meydkaas oo xitaa wejigiisa lama aqoonsan karin. markii la soo saaray baadhitaankii lagu sameeyey DNA-gii meydkaasna waxaa si rasmiya loo shaaciyey dhimashada sheekhii imaamka ahaa ee cabdiljaliil. arrinkiina waxaa loo sheegay qoyskiisii. wiilkii kamaaludiinna waa loo yeedhay oo waxaa lagu bilaabay baadhitaankii. ninkaasina muu haysan doorasho kale oo aan ahayn inuu qirto dembigan mooyaane, wuuna qirtay oo weliba wuxuu uga warramay ciidankii sida ay wax u dhaceen oo weliba faahfaahsan bilow ilaa dhammaad. wuxuu ku sheegay kamaaludiin baadhitaanadii lagu sameeyey inuu ka xanaaqay sheekhaas maadaama uu soo dacweeyey sababtiisana looga saaray shaqada. sidaa darteed kamaaludiin wuxuu go'aansaday inuu ka argoosto sheekhaas, wuxuuna sameeyey qorshe weyn oo kala dhigdhigan. maalintii dhacdo ay dhacday wakhtigu markii uu ahaa salaadii subax kadib oo sheekh cabdiljaliil uu salaadii dadkii tukiyey, kadibna sidii caadiisa ahayd uu iska fadhiyey mixraabkii uu dadka salaada ku tujiyey isagoo ilaahay u wardiya oo ilaahay iska barya. waxa uu soo dhowaaday xilligaas wiilkii mu'adinka ka ahaa masaajidkan ee kamaaludiin, wuxuuna u sheegay in laambaduu lahaa masaajidku inay dantay oo loo baahan yahay in la bedelo laambadaas. kaale uga caawayuna ku yidhi sheekhii si aan uga bedelo laambadaas meesha. waqtigaas kamaaludiin waa laga saaray shaqadii masaajidka oo wasaaraddu way ka eriday, laakiin haddana weli waqti ayaa la siiyey oo intaas kaga bax shaqada ayaa lagu yidhi. welina wuxuu ahaa mid degan qolkii oo aan furayaashii masaajidka soo wareejin, shaqooyinkii masaajidkana sidii u wadaa. sidaa darteed kamuu shakiyin sheekh cabdiljaliil ninkan, manuu dareemin gebi ahaanba waxa aadka xun ee uu ku hayo niyadda, wuuna soo raacay sheekhii si uga caawiyo hagaajinta laambadaas. cabdiljaliil wuxuu bilaabay inuu hawshii la qabta ninkan, laakiin kamaaludiin wuxuu soo bixistay bir uu ku soo qarsaday meel masaajidka ka mid ah. birtaasay uuna kaga dhuftay sheekhii madaxa isagoo aan iska arkeen oo uu soo gaaday. arrinkaasina wuxuu ka dhigay sheekhii inuu dhulka ku dhaco uu miir daboolmo, laakiin arrinkaasi kamuu dhigin kamaaludiin inuu ka istaagay inuu ku qaraaco sheekhii birtii uu sitay. iyadoo ay jirtay birtaas adag ee uu ku qaraacayay ninkaasi awgeed inay ku sababtay sheekhii inuu dhulka ku dhaco uu aad u dhiig baxo, haddana sheekh cabdiljaliil wuxuu ahaa weli mid neefsanaya oo naftii way kusii jirtay. sidaa darteed middaa uu soo qaatay uu ku dilay sheekhii. si faahfaahin mayna qaabka foosha xun ee uu dilay ninkaas sheekha, laakiin run ahaantii wuxuu ahaa qaab aad u fool xun. intaa kadib kamaaludiin wuxuu soo jeeday meydkii sheekha oo wuxuu geeyey qolka ay ku tukadaan dumarku ee masaajidkaas. kadib wuxuu sii geeyey meesha lagu weyse qaato, halkaasna wuu yaryareeyey meydkii sheekha. kadib wuxuu soo qaatay kiishash waaweyn oo ahaa kiishashka qashinka lagu rido, halkaasi uuna ku dhex riday meydkii sheekh cabdiljaliil, wuuna xirxidhay oo xabag ayuu ku wareejiyey. ugu dambayna kiishashkii wuu soo qaaday oo wuxuu ku riday caaga qashinka lagu rido. caagaasna kagamuu tegin bannaanka ee wuxuu soo geliyey masaajidkii, gaar ahaan qol maktabad aha oo masaajidka ku dhex yaalay. mukayfka ama eesiga halkaas ku yaalayna wuu daaray oo wuxuu geeyey heerkul aad u hooseeya si aanu u qurmin meydku oo aan looga dareemin masaajidka dhexdiisa urta halkaas ka soo baxaysa. intaa kadib kamaaludiin wuxuu bilaabay inuu nadiifiyo masaajidkii oo weliba uu nadiifiyo qaab aad u xeel dheer, wuuna qariyay oo uu tirtiray raadadkii dhacdadaas iyo wax kasta oo lagu ogaan karayay in halkaas uu dembi ka dhacay. markii uu arkay inuu soo dhowaaday wakhtigii aadaankii salaadii duhurna, kamaaludiin si fiican uu soo maydhay wuxuuna u eedaamay salaadii duhur. dadkii masaajidka joogay ee halkaas ku tukanayeyna wuxuu uga cudur daartay inuu maanta maqan yahay sheekhii imaamka ka ahaa masaajidka oo isagu uu tukanaya salaada maanta. isaga ayaana salaadii tukiyey dadkii, isagoo beddelkaa sheekhii uu dhowr saacadoodun ka hor khaarijiyey. meydkii imaamku wuxuu dhex yaalay maktabadii masaajidka muddo hal maalin ah. maalintii ku xigtayna kamaaludiin wuxuu ka dalbaday mid ka mid ah asxaabtiisii inuu ka caawiyo inuu ka takhaluso meydka sheekha oo ay ku soo tuuraan meydkan meel ka baxsan magaalada. wuuna u sheegay kamaaludiin sidoo kale saaxiibkii waxaa halkaas ku jira inuu yahay meydkii sheekhii masaajidkan tukan jiray, laakiin muu diidin saaxiibkii oo u oggolaaday inuu ka caawiyo arrinkan uu samaynayo. sidaan halka hore kusoo sheegnayna waa la soo qabtay labadii nin ee kala ahaa kamaaludiin iyo saaxiibkii, iyagoo isku dayay inay ka takhalusaan meydkii sheekha. maadaama cadaymahaas tirada badan lagu hayay ninkaas ee sheegay inuu isagu yahay dilaaga dilay sheekhii oo isaguna sidoo kale uu qirtay dembigan, ma adkayn maxkamadda dhexdeeda in lagu sugay eedaynta ninkaas oo si degdega loo maxkamadeeyo.
waana la maxkamadeeyey Kamaaludiin oo waxaa lagu xukumay xukunka in lagu dilay isagana rasaas. xukunkaas lagu xukumayna waxaa lagu fuliyey ninkaas taariikhdu markay ahayd 27 bishii 7 ee sanadkii 2019. dhacdan iyadoo si degdeg loo xukumay ninkii sameeyey oo cadaaladda la mariyey, haddana run ahaantii waxay gilgashay dhammaan shacabka Baxrayn iyo dalkaas guud ahaanba marka la eego qaabka aadka u foosha xun ee u dhacday dhacdani ee aan hore looga arag waddankaas iyadoo kala weli. Sheekh Cabdiljaliilna waxaa loo sameeyey janaasa aad weyn oo ay kasoo qayb galeen 100 qof oo ah shacabkii dalka Baxrayn, kuwaasoo sidoo kalena aad u caawiyey oo taageeray qoyskii uu sheekhaasi ka dhintay. intaas uu ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. haylooban hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena Ogaal Cusub. waad mahadsan tahay.